gerigan wuxuu ka soo toosay hurdo balse wuxuu dareemay in qoortiisii dheerayd ay si xun u qaloocatay wuxuuna isku dayayaa inuu geedaha u isticmaalo sidii uu isugu toosin lahaa. nasiib darro qorshihiisii wuu fashilmay wuxuuna si xun ugu dhacay dhulka isagoo wejiga ciidda gishtay. dhibaatadan oo dhan waxay ka timid isaga oo ku seexday dhagax gees leh taasoo sababtay inuu qaabkan la yaabka leh u qaloocdo markuu soo toosay. socodkii ayaa dhib ku noqday maadaama qoortiisa qaloocan ay ka lumisay dheelitirkii jirkiisa wuxuuna la daalaadhacayaa inuusan dhicin. mar kale ayuu isku dayay inuu xariggeed ka soo laalaada qoorta saarto si uu u toosiyo balse culayskiisa dartii xariggii wuu soo go'ay. wuxuu isticmaalay xeelad kale isagoo lugtiisa u adeegsanaya inuu xarigga ku jiido balse weli qoortii sidii la rabay uma toosin. fikrad cusub ayaa u dhalatay wuxuu xariggii ku xiray dhagax weyn si uu u helo awood culus oo qoorta u soo jiida. dhagaxii ayuu laaday si uu u dhaqaaqo balse xooggii ayaa batay taasoo keentay in qoortu markan u qaloocato dhankii kale ee lidka ahaa. xaaladdu way ka sii dartay dhagaxii ayaa jiiday isagoo weli qoortu qaloocan tahay xitaa inuu istaago ayay dib ku noqotay. wuxuu isku dayay inuu xoog ku dhex maro dhagxaanta iyo geedaha dhexdooda si uu qoorta u qasbo inay toosto balse way u suuragal weyday. ugu dambayntii dhagaxii cirka ayuu u duulay wuuna ka furtay. geligu wuxuu dareemay nafis weyn isagoo mooday in dhibaatadii dhammaatay laakiin dhagaxii ayaa ku soo duldhacay. qoortiisii dheerayd ayaa isgashay oo noqotay mid gaaban sidii qalab la isku laabay oo kale. si uu qoorta u soo bixiyo geed ayuu qaniinay balse wuu ka soo dhacay buurta. hadda ma ahan qoorta keliya xitaa lugihiisii ayaa gaabtay oo wuxuu noqday geli aad u gaaban. xishood darteed ayuu u cararay si uusan qofna u arkin wuxuuna galay meel ay ka buuxaan ubaxyo sababay inuu duuf iska celin waayo. markii uu si xoog leh u hindhisay jirkiisii wuu toosay oo dherarkii caadiga ahaa ayuu ku soo laabtay balse dhib cusub ayaa soo baxday. hadda murqihii qoorta ayaa dabcay oo madaxa kor uma qaadi karo. wuxuu isku dayay inuu wareego si madaxa u kaco balse way shaqayn weyday. fikrad cajiib ah ayaa ku soo dhacday wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo qodax fiiqan si xanuunka u keeno inuu boodo. dabada ayuu qodaxii ku aadiyey xanuunkii ayaa sababay inuu naxo oo jirkiisu si toos ah u istaago. ugu dambayntii qoortii way toostay laakiin masiibo kale ayaa dhacday. madaxiisii ayaa gadaal u jeestay taasoo keentay inuu derbiga ku dhaco isagoon arkin.